ugaas xuseen xaaji geela bokor oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa shir jaleed ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu soo dhaweeyay qabsoomida doorashooyinka isagoo uga mahad celiyay gudoomiyaha maxkamadda sare Soomaaliland Professor Aadan Xaaji Cali iyo sidoo kale dhammaan mas'uuliyiinta maxkamadda dastuuriga ah go'aanka ay ka qaateen qabsoomida doorashooyinka ayaa waxa ka mid ah hadaladiisii shirkaygan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay inaan marka hore hambaliyeeyo gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed iyo garsoorayaashiisa iyo maxkamadihiisa mas'uuliyadda ka yahay go'aanka geesinimada ay qaateen uu ka qaatay arrinta dabarkii doorashooyinka uu laalay waan ku hambalyeynaa waan ku bogaadinaynaa marka xigta wax badan oo garsoorka intii ay joogeen dhalinyaro badan ay qabteen oo ka mid yahay guriyo la isku haystay 65 sanadood oo dawladaha dhan soco mareen oo lagu dhameeyay si walaaltinimo iyo isdhexgalnimo ah waan ku hambalyeynaa maxkamadda sare iyo dhammaan garsoorka bahda garsoorka wax badan inoo qabto waan hambalyeynaa intaas kadibna waxa uu ugaasku ka hadlay in dhammaan reer Soomaaliland gaar ahaan beelaha dhexe diyaar u yihiin sidii ay u gali lahaayeen doorashadaasi baryahan waxay nagu soo noqnoqonaysay arrimo ku saabsan beesha dhexe waxaan idin sheegayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland beesha dhexe cid ay wax ku haysataa ma jirto cidna wax kuma haysata beesha dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dawlad la wada leeyahay wadad walaalto wax ka wada dhaxay oo isku deegaana oo wada dhashay oo ehel iyo xidid iyo xigaal ah sida darteed cidna wax kuma haysato beesha dhexe way nagu soo noqnoqotay arrintaas waxaan leenahay doorashada marka laga hadlayo beesha dhexe way galaysaa doorashooyinka dhammaanteed meekay soo joogaan beesha dhexe way galayaan doorashada cidna xuquuqdooda lumin maayaan cid kasta oo leh saami baa naga maqana inay soomigeeda doonato oo ugu hambalyeynayna waliba xukuumadana waxaan leenahay cidii wax ka maqan yihiin waxeeda hal la siiyo ma haysana si anagu cid sidaana loo hadalayo ugu dambeyntii ugaaska ayaa waxa uu soo jeediyay talooyin anu taladeedu guud waxaan leeyahay cidii doorashada ka cabanaysa waxay ka cabanayaan hal eego waa qodobkay koobaad cidii aan cabanin ee diyaar u ana imanka doorashadan caqalada ku jirta ugu badan waxa weeye rag baa 15 sano loo fadhiyay 5 sanadoodna waa la doortay haddii ku adeegiin kuwii 5 sanadood la doortay 15 sanadood haystay anu ma waafaqsanayna si fadhiyaan waxaan taageerayaa doorashada in la qabto baan ugu taageerayaan ku talinayaa taladeeda guud waxay doorashada la galo waa nimanka in haysta ee dadka qujaynaya waa nimanka 15 sanadood fadhiyay haddii beelaha qaar ku raacayeen oo eediyeen dee anagu ma ayidina kuwa 15 sano fadhiyeen si fadhiyaan dadku iska bedelku wax ku yahay Soomaaliland wax ku tahay inay isbedbedesho inay wax wada yeelato inay kolba koox meesha fusho inay madaxweynayaashu isbedelaan inta tidii Soomaaliland wax ku tahay hadday kooxuun meel ku dhigto waxba aan meynadeen marka waxaan leeyahay isbedelka waan taageersanahay anigu Abdulqaadir Coday Honkeba TV Hargeysa magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bisha oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha